وحساك دقن حالة مقالة مقدشو كدب دقالة علوس أو شالي إيا حليبا كدعي حافظة كترسن دقمة عبد العزيز قارهان حافظة ميرينايا isgoyska dabka degmada howlwalaag madaxtooyadii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo wadada halbowlaha ee tagtay madaxtooyada ee Makka al-Mukarrama xaafada Mirinaya ee dagaalada ugu culus ay ka dhaceen waxa degan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud dagaaladan oo dhamaantood ku gacanta la isuulatay waxa ka qayb qaatay baabuurta gaashaamaana dagaalka oo ay kamid yihiin beebeeyada aan xabadu karin ee keentay Turkidu dagaaladan waxay u dhaxeeyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa isbahaysiga mucaaradka oo isku dhinaca waxaana xidhan goobo waxbarashada iyo ganacsiga lafaantiisa waxa sidoo kale go'an korontada xaafadaha qaarkood dadkii degan xaafadaha lagu kor dagaalamayna waxay naftooda ugala carareen hubka meesha ka dhacayo aad u culus shan qof oo rayd ayaa ku dhaawacmay dagaaladii socday 24 saacadood ee la soo dhaafay waa inta la xaqiijiyay balse lama oga khasaaraha dhabta ah ee soo kala gaadhay dhinacyadii dagaalamayay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho ayaa waxay wadaan dadaal ay ku doonayaan in lagu soo afjaro colaadda waxaana ku guuleysteen habeenkii xalay ahaa inay kala qaadaan ciidamadii soo fadhiyay wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubay Jimcaale oo hadlay ayaa isna waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen waxa uu yeedhay maleeshiyada ay soo abaabuleen dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda toonaan haynin isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri deegaankooda ay soo abaabuleen maleeshiyad oo si kasta oo loogu caqliga celiyay ama la isku dayay in loo caqli celiyana ay diideen in ay maanta soo weerareen magaalada Muqdisho qayb ka mid ah ciidamada ammaankuna ay ka hortageen arrinkaasna ay soo afjareen in muddo ah markii ay isku dayeen ayagoo shacabkooda iyo dadkooda u naxaya in ay arrinta si waan iyo si qabow ah ku dhameeyaan kadib markii ay suuragali weyday in ay ciidanku arrinta farageliyeen ay ka hortageen soona afjareen cid alla cidii dhibaato ku gaartay arrinkaas oo shacabka Soomaaliyeed sharafta badan ka mid ah iyo deegaanada wax ku gaareen aad iyo aad uga taxadiinaa waana aad iyo ugu xunnahay hase yeeshee hogaamiyaasha mucaaradku waxay sheegeen ciidamada dawladdu ay weerar ku soo qaadeen oo ay doonayeen inay khaarijiyaan waa sidii hadalka u dhigeen dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waa berigi wax yar ka hadla hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay gutaan waajibaadkooda lana ilaaliyo amniga waxaanu yiri waxaan rabaa halkaan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaalada Muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmada iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhooro bulshadana loo tulo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee dadka reer Muqdisho waxay u ahayd xalay habeen kale oo ay leeladii waayeen hubka culus ee artilleriga lamana oga ilaa ay intay sii socon karaan dagaaladani dadka la dhacsan siyaasadda madaxweyne Farmaajo waxay sheegaan inuu yahay wadan ay ku jirto qab Soomaalinimo halka kuwa ka soo horjeeda siyaasaddiisuna ay sheegaan inuu yahay kaligi taliye macangaga oo kursiga ku sii dhegan